باحثا عن خير صحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة. هوانتنا حبيgeeda iyo ka agdhawaanteeda ninkeeda iyo fariisigeeda agtiisa iyo la kaftanka iyo dheeshiisa waxay u ilqaboojinaysaa ninkeeda oo ku hananaysaa qalbigiisa iyo maankiisa markaasuusan milicsanaynba khayrkeed. asluub kale ee habka la dhaqanka zawjka waa dheesha iyo kaftanka iyo nuglaanta iyo naruurada. kanina waa asluub kale oo ka mid ah asluubaha madiideynta bannaan. sida awgeed waxaan maqlaa dhalinyarada badankood oo leh gabadha aan guursan waxaan rabaa oo shardi ah inay tahay farxaanad taqaan kaftanka iyo ciyaarta, waayo hadalkeeda san iyo dhoolbirkeeda macaan bay kaga buuxin guriga ladnaan iyo liibaan, iyo socodkeeda khafiifka ah iyo dheesha iyo ciyaarteeda waxay u dhammaynaysaa footiinka iyo caajiska nolosha. nuur, duco, qurux, dhaldhalaal, nadaafad waxaa iska leh daaciyadda toosan ee haweenka amarta khayrka ka reebta munkarka ee hamigeedu yahay faafinta islaamka. marka ha ku dadaasho haweenta cibaado badan si ay u kororsato qurux iyo qiimo iyo qaayo, nuur iyo nuruuro.